kulan waxaan daawada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada iyo soo kale arrimaha xiisaha leh adaan kala idin soo gudbinayo arrimaha dhacdooyinka warbixintana maanta waxay gaar u tahay filmada qaybta koonfurta ee la daawan doono 6 bilood ugu soo horeysa ee sanada 2023 kuwaas oo la filan doono in film waaweyn ay markaas ay soo bandhigaan qolada koonfurta ah 2022 ayaa sanad fiican waxa uu ahayd filmada koonfurta kuwaas oo wacdar ka dhigay qaybaha tiyaatarada laga soo bilaabo filmada RRR KGF2 iyo soo kale Kantara kuwaas oo filmada gobolada ay noqdeen kuwa garaacay filmada ugu awood badan ee qaybaha Bollywoodka iyagoo sidoo kale wacdar ka dhigay qaybaha tiyaatarada Bollywoodka ayaa sanadka 2022 waxa uu ahayd mid hal ku tagnaa hasaatee صوت فيلم سنداسري أي وحي يكون مركز العجا حولي اسمه سنداس سو كلنا لا بكون استحيل بعدين كانوا وحيوتا سند كل حيسله يكون سو كله ما دونا فيلم أود بدن قاس مركز السوق إن سو كلنا سي هل كذا كسي ودان ترتن كعدجا كل جيران شبكة بوليوود كا هذا بقى وحنس لا يقدونا فيلم داسي فيلم كواد وفارسو تلفتي في جي سو كل شيء مكان بدنا فيلم كذا فارسو أي واحد لو وضع إن الدعوة أسبوع فسح بونجل لا بكون استحيل بعدين جنوري اللي بيتوبن كده تاسو تاجرش يجين مركان عاد السوقية إن أي داودان إسفهم كده حيل لابد هو وين مركان قيبت كونفورتا هرش مكان مندانا يسوق تلفتي في جي فيلم كاسي وحلقة فيلم كرا إن وعذر كسوق دي قيبات تياتر ذا فيلم كلاوات وثونيفو أساس كمار فيلم كذا ثونيفو أي وحيا مثل وجود إن الدعوة جنوري كوي تبن كده لا بكون لبي وحنا يهاس بالعصب يسوق الفيلم عصب ولا ما دون جلاجان وحنا حسب بدن الفيلم كانوا هاد متكسبسن أرمها دنبيدا فيلم كستحد أدي بروش كاسو هجامي كيا بربا سيف على قان يسوق الجلايال كله أي وحيا مد مركان لو قرش جري فيلم كان لعجة وين وحنا سوق الرجال قبائن فيلم كاسي إن وكان قضوا مد لو صوب النجو في إكسره waxaan soo kale laga yaabaa inuu wacdaro oo ka dhigo qaybaha tiyaatarada inkastoo filmkan uu yahay mid lagu dhigay iyo qaabka VFX-ka loo isticmaalay filmka kale liiskana ku jir waa Hari Hara Firumalu kaas oo hogaamiye Bowen Kalyan ayaa wuxuu yahay mid lagu wado in la daawado Maarso 7keeda 2023 filmkana wuxuu mid markaan hadaleyntiisa cirka ku jirto sidoo kale waa film weyn waxaana sidoo kale shaki ahayn ama laga nixi doonin haduu xitaa filmkan oo blockbuster oo ka noqdo qaybaha tiyaatarada filmkan ayaa rajo weyn laga qabaa filmka ugu dambeeyay ee liiskan waa Bonnie Sylvan Part 2 waan wada ognaa wacdarada iyo sidoo kale sida uu filmkani wacdar kaga dhigay qaybaha tiyaatarada 2022 kaasoo director Mani Ratnam Bonnie Sylvan Part 2 ayaa sidoo kale waxa hogaamiye ka noqon doona Ashwarya Bashan Jian Fikram Trisha Krishnan iyo kuwa kaleba filmkani wuxuu yahay mid markaan kamid ah sanada 2022 filmka uu lacagaha badan ee qaybta koonfurta salamidan waxa laga filan karaa qaybta labaad in uu wacdaradaas halkeeda oo ka sii wado asagoo filmada ugu xiisaha badan ee sanadka 2023 qaybka ah waan arki doonaa filmadaasi waxyaabaha ay ka soo kordhiyaan qaybaha tiyaatarada iyadoo sidoo kale rajo weyn laga qabo 6 bilood ugu horeysa filmada koonfurta ah ee la daawan doono iyagoona alaaba koonfurta filmadooda ay yihiin maalmahan kuwa sheeko fiican iyo sidoo kale dad waaweyn iskugu keeno qorasho waaweyn lagu maalgeliyo sidoo kalena baan hindi ay noqdeen wacdarana ay ka dhigayaan qaybaha tiyaatarada halka sidoo kalena ay ugu soo gaday godkooda qolada Bollywoodka iyagana sidoo kalena filmada 6 bilood loo daawan doono ay yihiin kuwa iyagana wacdaro leh waana arki doonaa cid guuleysata sanad soo socota tanka Bollywoodka iyo koonfurta iyagana doodooda ay tahay mid alaaba ay dhaxda ay kaga jiraan oo wali ay socdo dood ah yaa fiican Bollywoodka iyo sidoo kale yaa fiican iyo kuwa koonfurta intaan ku soo xinaa warbixintan dadka ka sheegay noo saar soo kale asxaabtaada la wadaag wadku ma santina laabsan noo dhiirigelisana muuqaalada u daawataan kan kiis xigana nabadgelyo